السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود واد أصحابتا ملك السود ردك جوجتين وحان ربا إن أعو حلقان كوغسو قدبيو توغ أوغهن أدون كانوا هاجرة توغ فربضن بلس توغاني وتوغ أوغهن وحان نوشيغي رسولك صلى الله عليه وسلم مغال كاني لايك صار يوتيوب كينا سبسكرايب نو صار آيات محسنتين رسولك صلى الله عليه وسلم ما هو يري dadku waxa ugu xun xagga tuugnimada qofka salaadiisa wax ka mid ah asxaabtu waxay ku yiraahdeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam yaa rasuulallah sidee ayuu qofka salaadiisa u hadayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu yiri wuxuusan dhameystiraynin rukuucda iyo sujuudda qofka haduusan dhameystirin rukuucda iyo sujuudda waxay ka mid tahay inuu salaadiisa haday إلهي سبحانه وتعالى أيونك مغان قلني ولا ليا صلاة مهم تهي قفك وحال ربا إنو وقددال صلاة إلهي سبحانه وتعالى صلاة قفك هدي وحقاكتو عملكي سكالة وحقاقيا بل سهدي صلاة كاحلاوتو عملك هذا كلن وكاحلاويا قفك وحال لوغ باحنيحي إنو كددال صلاة سيب صلاة مركو تكونا وحال ربا إنو صدقنا أتكدو ندفر بدن أياد أركيسا مركي صلاة تكون istaagooda iyo sujuudoodu waa isku mid qofku waxa la rabaa inuu ictidaalka sami Allahu liman hamida markuu dhaho waxa la rabaa qofka inuu istoosiyo dad far badan ayaa jira ictidaalkii meesha loogu baahnaa bedelkeeda ismarkiiba dhulka ay u araan midaas waa dhibaato aad u weyn waa mid rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka digay walaaliyaal salaad aad ay muhiim u tahay inna salata kaanat alal mu'minina kitaaban mawquut salaad waxa la rabaa qofka inuu aad ugu fikiro salaada haday ku hagaagto adduunkan waxaad ku noolaanaysaa nolol heer sare ah aakhirad waxa noqonaysaa qof guuleysanay dad far badan ayaa maanta salaadooda aysan salaada hadii laga aqbalay waxaad ku ogaanaysaa xumaanta ay ka celinaysaa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar xumaanta iyo munkarka ay salaada ka celinaysaa balse hadii salaad aad tukutay wax xumaan hadiisan ka celinin macnaheedu waxa waaye salaada lama aqbalin waxa la rabaa inuu qofka aad ugu dadaalo inuusan salaadiisa hadin sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka digay waa inuu rukuucda iyo sujuudda iska sugaa hadii rukuucda iyo sujuudda sida loogu talagalay aad u habaysid oo aad iska ilaalisid degdeg farax badan waxa la hubaa in salaadaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku aqbalay walaaliyaal muuqaalkan waxa ay ka rabaa inaan meel fog aad gaarsiiseen qofka walaalkaada ah hadii wanaag aad gaarsiisid waxa laga yaabaa inuu aad ugu farxo oo dambeyn uu noqdo qof guuleysta waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkani like saar YouTube kana subscribe noo saar aad u mahadsantihiin antan muuqaaliga aan ku kulmi doono sidaas ee nabadgeliyo wassalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.